السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا ميلول بدردريدا كجوكتان فيدينيمو وناكسن مالينيمو وناكسن حلي ولبا إيا وقت ولبو يدينتاي كرسونا وادا برامجكينا ريماكي بتداركو فلقين جرنا أبراتك الساعة دي ساعة مرايانو هوادا كوكولونا إناغو اسكو نابسنا أراكتيدا تكنولوجيا بروكشينكا كريبتوكارنسيغا حورانتيدي جويديدا كلا دوان إيا سيدي آنو إساقين ديكي لهين حاليستا jiifooja qamiiska amriska kala duwan ay gudaha kiribtada dhex marayso markaana aan isugu gubaabin lahayn fursadaha dhinaca maalgashi ka shaqaysasho ee gudaha lacagaha kiribtokaransiga inkastoo xaalku uu sidaas yahay haddana su-aal adag ayaa inta badan dhalinyarada soomaaliyeed iyo dunida muslimku ay isweydiisaa markay noqoto gudaha teknolojiyada blockchainka iyo kiribtokaransiga su-aashaasoo ah sidee baa lagu kala gartaa kiribtooyinka kuwooda xalaasha ah iyo kuwooda xaaraanta ah waana mawduuc aad u taagan marka ay noqoto gudaha bulshada islaamka ee dunida ee la dhaqanta teknolojiyada blockchainka iyo kiribtokaransiga baaritaano kala duwan oo shabakadeena iyo asxaab fara badan oo ummadda muslimiinta iyo culimo iyo dad fara badan ba isugu jirto oo baaritaano kala duwan sameeyey waxaanu jeclaanay inaanu halkan ummadda soomaaliyeed ee ka shaqaysata gudaha lacagaha kiribtokaransiga nugu soo gudbinno miisaan la oran karayo faham weyn ayay ka siin karaysaa kuna kala ogaan karayaan koynanka kuwooda xaaraanta ah iyo kuwooda xalaasha ah waxaana mawduucaasi nala socodsiinaya saaxiibkan cabdifataax caan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فيديوغان wuxuu ka mid yahay fiidiyoyaashii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay kiribtooyinka xalaashooda iyo xaaraantooda qaybtan waxaan uga hadlaynaa suuqyada kiribtooyinka lagu kala gato noocyada u kala baxaan guud ahaan laba qaybood bay u kala baxaan suuqyadu qayb waxaa la yihahdaa centralized qaybo xarun laga maamulo leh weeye centralized exchanges qaybna waxaa la yihahdaa decentralized exchanges dex baa loo soo gaabiyaa waa suuqyo aan lahayn xarun laga maamulo waa la sameeyey oo waxaa lagu sameeyey smart contract waa suuqyo marka dadku dhexdooda ismaamulayaan ayagu waay laakiin xarun waardiyeynaysa oo kor ka maamulaysa oo loo dacwoonaya aan lahayn wey marka labada qaybood ba u kala baxaan guud ahaan suuqyadu qaybta centralizeka ah oo xarunta laga maamulo leh yacni dad baa samaystay dadkii samaystay baa weli dhex jooga ayaga ayaa maaragtay maamulaya ayaga wixii luma ayagaa mas-uul ka ah wixii weerar ka dhaca oo lasoo weeraro oo macnaha kiribtoyn haddii la jabsado ama laga qaatay waxaas un ayagaa mas-uul ka ah meel ayagu ay joogaan oo mas-uul ka yihiin waaye qofkay doonaana u ogolaanaya inuu soo galo suuqaas qofkay doonaana u diidaya laakiin kuwan kale ayagu cidna lagama xigo qof kasta ayaa geli kara waddankuu doona adduunka ku noolaado qof kasta ayaa geli kara waayo looma baahna halkan waxaa ku qoray no KYC looma baahna KYC waxa waaye know your customer oo macnaheedu yahay dadka customerka suuqa ka adeeganaya inay dukumenti soo diraan oo la aqoonsado oo ay noqdaan dad la yaqaano oo maarata dukumentikooda la hayo dex markaa joogta ma loo baahna waxaas cidna isma weydiiso qof alaalo qofkii meesha yimaado ayaa ka adeegan kara la-anna isagoo dhanba wuxuu ku dhisan yahay suuqyadan dhexkaahi smart contract wax la yirahda ku dhisan yihiin meesha kuwa kaloo caadiga oo centralizeka ah ayagu ay yihiin owners baa iska leh exchange dad owners leeyihiin waaye dad baa iska leh mulkiyadeeda ayagii baa ku shaqaysta KYC baana qofka looga baahan yahay mar walba iyo inuu dukumenti u diro dadka suuqyada joogana way yaqaanaan intooda badani KYC way isticmaalaan suuqyada centralizeka waxaa ka mid ah Binance, KuCoin iyo kuwa la midka ah kuwa decentralizekana waxaa ka mid ah Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap iyo kuwo kale oo ayaguna kuwa lendingka iyo borrowing lagu sameeyo oo waxaa jira ayaguna decentralized camal ah laakiin swaps aan ahayn laakiin suuqyo kale waxaa lagu sameeyaa marka farqiyada ugu waaweyn u dhexeeya waxa waaye in kuwaanu KYC ay u baahan yihin kuwaana aysan u baahnayn farqiga kale oo u dhexeeya waxaa ka mid ah kuwan centralizekaas suuqyadaasi
order books bay leeyihin wax la yidhaahdo order books waxa waaye marka inaan tuso waaye si ay sheekadu u fiicnaato. hadda Binance baan joogaa. order books waxa weeye dadka wax kala gadanaya wey basically orderada dhigtay meesha buyerska iyo sellerska ah. tusaale haddaan ku dhufto hal cripto oo criptooyinka ka mid ah, dadka qaarna way gadanayaan, qaarna way iska gadayaan. qof walbana wuxuu keenay orderkiisu meesha keenay. kuwaas waxaa lagu magacaabaa order books. khadka iga yaro culus, wax yaro dulqaata. order books waa kuwaana. order books waa kuwaana. waa kuwan bidixda ka fiiri. dhinaca bidixda dadka traderska ah ayaa order book la yidhaahdaa. orderada ay keensadeen kuwan cagaaran, kuwa wax gadanaya ah, iyo dadkan guduuda farta guduudan oo ku iska gadayay ah. qof kastaaba wuxuu iska gadayay meeshuu keenay, inta xabuu haysto, totalkooda. kuwaana qof walba uu wax gadanayay inta xabuu rabo inuu gato weeye. marka order book saasa la yidhahdaa, order book. marka kuwan order book bay leeyihiin. kuwan centralizeka waxay leeyihin order booko. dad baa wax kala gadanaya. dadkii gadanayay buyerska ahaa iyo sellerskii labadaba way joogaan, meeshay joogaan. meesha qaybta kaloo decentralized exchange-yaasha suuqyaasha decentralizeka ah ma jiro order book. dadka buyerskana waxay wax ka gataan kuwa lagu magacaabo liquidity pools, liquidity providers baa la dhahaa, ama haddaan si kale la yidhahdo AMM. kuwa suuq sameeyayaasha ah ayaa wax laga gataa oo lagu magacaabo automated market makers. suuqan decentralizeka dad orderadooda meesha keensad baa ka gadanaysaa. kan laakiin decentralizeka waxaa wax ka gadanaya marka wax gadanaysid pool meel la yidhaahdo. criptooyin meel isugu geeyey oo meel ku urursan ayaa wax ka gadanaysaa. ka gadan maysa shaksi gooni ah, oo ma jiraan shaksiyaal gooni waxooda meesha keensaday ma jiraan. pool ba wax ka gadanaysaa. difference ugu weyn oo meeshaan ku jiran taas waay. suuqan waxaa la keenaa criptooyin aad u fara badan ba suuqyadan centralizeka yaalla. kuwanna ayagana criptooyin badan baa yaalla, laakiin kuwan waxay ku duwan yihiin, uga duwan yihiin kuwan suuqyadan centralizeka waa iska website weeye. kuwan laakiin decentralizeka waa smart contract oo blockchain ah bay ku shaqeeyaan. mathalan Uniswap oo kale waxaa lagu dhex gadan karaa criptooyinka ERC20 la yidhaahdo ee Ethereum dul saaran. PancakeSwapna waxaa lagu gataa oo ama laga gataa ama lagu gadaa criptooyinka Binance Smart Chain ku dhisan. saas waay. marka qaarkood kuwaan marka suuqyadan centralizeka cripto markaa ka gadanaysid, criptooyinku waa beer bay isku yihiin, laba isugu beer isugu yihiin. kuwaana macnaha wax beer ah ma jiraan saase, adigu waa isu gadanaya. criptooyinkan adigu waaladkaaga kusoo xiranaysaa. waalad adigu aad leedahay baa kusoo xiranay suuqan. markaa kusoo xiratid waaladka, criptadii waaladka kuugu jirtay ayaa waxaa ku bedelanaya criptada meeshaan taalla, suuqan taalla. marka swap saasaa loo yidhi. swap waa kala bedelasho. ma jiro order bear, ma jiro order bookna ma jiro. waa kala bedelasho un. criptada meesha geysanaysaa waa soo bedelan, mid kale kusoo bedelana. taas waa lagu magacaabay swaps. suuqan centralizeka waxyaalo fara badan oo cripto oo ka baxsan buy and sell, waxyaalo badan oo ka baxsan oo xaaraan naga ah islaam ahaan ayaa lagu gadaa. waxyaalaha lagu gado waxaa ka mid ah derivativeska waxa la yidhaahdo, oo aan gadaal uga hadli doono fiidiyoyaal kale oo soo socda uga hadli doono. waxaa ka mid ah staking baa lagu sameeyaa dhexdiisa suuqan. khamaar gambal baa lagu sameeyaa. khamaar waa lagu dhex khamaaraa suuqyadan. khamaar meelaha lagu dhex khamaaro waxaa ka mid ah Binance, suuqa Binance.
yield farming wax la yiraahdo lagu sameeyo iyadana deyn crypto la isdeyminayo ribo lagu kala qaataa margin trading baa lagu sameeyaa iyadana ribo ah leverage tokens oo leverage laga dhigay ayaguna oo ribo ah baa lagu sameeyaa yani waa suuq waxyaalo fara badan lagu sameeyo laakiin annaga islaam ahaan muslimiin ahaan waxaa nooga bannaan suuqan inaan ka galno qaybta sportka kaliya sport only meelaha kaloo dhan waan ka fogaanaynaa tusaale hadda Binance waa kan suuqan Binance waxyaalo fara badan buu leeyahay saad ujeedaan wuxuu leeyahay derivativeski wuxuu leeyahay qayb kale earn la yiraahdo ayadana qayb finance la yiraahdo NFT yani balaayo dhan buu leeyahay annaga waxaa nooga bannaan kaliya qaybta sportka kaliya ah fiir halkan waxaa ku qoran margin trading iyo wixii dhan buu leeyahay qaybta trade-ka xataa wuxuu leeyahay margin trading swap farming buu leeyahay kaliya annaga waxaan ka galaynaa qaybta sportka bes inaan galno marketka kadibna qaybta sportka laba crypto kaliya aan isku gadno oo aan cryptadeena aan crypto kale ku gadano unbaa nooga bannaan waxyaalahan kale oo dhan waan iska ilaalinaa inaan galno waayo haddaan galno waxaan galaynaa nooc ganacsi xaaraan ah oo diinteenu aysan noo ogoleen ama ribo ah ama khamaar ah wax noocaas wey qaybtan kale ayadana swap bes aa nala ogol yahay inaan swap kaliya ka sameyno laba crypto xalaal wada ah inaan swap ku sameyno isku bedelno unbaa nala ogol yahay wixii intaa ka baxsan noolama ogola ayaga laftkooda waxay leeyihiin wax la yiraahdo staking iyo lending iyo farming iyo lottery oo khamaar ah waxoo dhan way leeyihin hadda lottery oo kale suuqa pancake swap wuxuu leeyahay qayb lottery ah lotterygaas oo laga wada khamaar qaybta khamaarka waaye $5 baa dhigane halkii marba $5 baa dhigane oo ku khamaaraysaa ilaa 100 mar baana khamaarka geli kartaa markastaa $5 dhiganaysa marka ayadana waan iska ilaalinaa suuqyadan centralized-ka inaan tokenada isku bedelano keliya baa naloo ka ogol yahay oo xalaal ah tokenadaasuna waxay noqonayaan laftigooda tokena xalaal ah suuqan kalena sportka only meesha baan ka shaqaysanaynaa tokena xalaal ama cryptooyin xalaal bes ayaana ka gadanaynaa wixii intaa kasoo haro dhan hawl noo taalama haddaan muslimiin nahay waan iska ilaalinaynaa sababtan usoo qaatay video caawa inaan duubo waxa waaye hal ujeedaan ka lahaa la-anna waxaa noo soo socda video ku saabsan yield farming waxaan doonaynaa inaan yield farmka wax yar intaan yield farming la gaarin aan fahanno wax lagu magacaabo liquidity pools ama liquidity provider wax la yiraahdo saan hore usoo sheegnay suuqan decentralized exchange-ga ah qaabka u shaqeeya waxaa weeye waxaa kala wada oo cryptada meesha taala kala socodsiinaya ama cryptada meesha taala keenay dad lagu magacaabo automated market makers suuq sameeyayaasha dadka suuqa sameynaya see suuqa ku sameeyaan marka waxay sameeyaan qof walbana wuu noqon karaa suuq sameeye waxaad keensanaysaa laba crypto oo beer isku ah oo 50-50 isku ah haddana mathalan haddaad rabtid inaad keensatid suuq ethereum haddaad rabtid inaad keensatid ama ethereum iyo BNB baa keensanaysaa labadaa beer waa inay 50-50 noqdaan lacagtooda kan haddaad ku ridid $1,000 oo ethereum haddaad keensatid waa inaad keentaa $1,000 oo BNB ah xagga lacagta xagga nambarada way kala badnaan karaan laana isku qiimo ma joogaan laakiin xagga lacagta guud ahaan ethereum pricekeedu yahay $1,000 haddaa keentid waa inaad keentaa BNB pricekiisu noqon karo $1,000 50-50 baa la dhahaa dadka noocaasa oo suuqan keena beerarka waxaa lagu magacaabaa liquidity providers meesha ay geeyaan oo cryptada isku lamaan oo labalabada ay geeyaanna waxaa lagu magacaabaa liquidity pools baa la dhahaa qofka marka suuqyadan tago mathalan adoo iska socdaa suuqyadan rabtaa inaad swap ku samaysid oo crypto aa wadatay baa rabtaa inaad ka bedelto crypto kale ku bedelatid swapka waxaa kuu sameynaya liquidity poolska kuu sameynaya ma aha qof bin kale oo aad wax ka gadanaysa maaha sida suuqyadan oo kale
si suuqyadan centralized ah qof wax uga gadanaysid orderkiisa meesha soo dhigtay halkan ma aha qof orderkiisa soo dhigtay waxa wax ka gadanaysaa waa poolska wax ka gadanay poolskuna waa cryptooyin meel soo geeyay waa poolka marka ama adaa bilaabi kartid haddayse hore u jirin waa bilaabi karaysaa adig oo liquidity provider wax la yidhahda noqon kartaa ama liquidity mining waa la yidhaahdaa liquidity mining liquidity provider intaba waa la dhahaa marka poolska dadka sameeya baad swapka ka sameynaysaa mar walba pool haddaad rabto inaad samaysidna saan soo sheegay laba cripta la imaanee meelaha qaarkood hal cripta lala yimaadaa oo la ogolyahay hal cripto keli ah meelaha qaarkood laba cripto poolkana exchangeyaashan kuwan uniswap iyo bankiswap iyo swap kaliya laguma sameeye saan hore usoo sheegnay liquidity poolka waxaa lagu sameeyaa meelaha decentralized oo dhan waa lagu sameeyaa kuwa protocolada iyo platformada ayagu ka shaqeeya lending and borrowingka dhammaantood poolska waa lagu sameeyaa oo waxaa waye liquidity poolka waa lagu sameeyaa criptooyin baa qofku geeyaa ujeedada marka loo geenaya maxay tahay marka waa hal ujeedo waaye dadkan liquidity providerska ah ee poolka sameynaya ee aan niri criptooyin bay meesha la tegayaan waa dadka suuqa kala wada waaye suuqyadan isdhekiska kala wada waaye dhowr mar baan ku celiyey haddana ku celinaa waxaa lagu magacaabaa automated market makers dadka sida automatica suuqa u sameynaya waa la-anna ayaga criptooyinkii la gadanaya meesha geynaya ayagu maxay helayaan marka ayagu waxay helayaan fee oo suuqyadan marka wax lagu kala gato fee actually buulkooda marka wax laga gato fee bay helayaan dadkii wax ka gatay ee swapka ka sameeyey ayaa fee laga siinaya feega qayb bay ku leeyihiin intaa kaliya maaha waxay kaloo helayaan token kale tokenkaasu dee marna wuxuu noqon karaa governance token oo suuqan laftigiisa token uu leeyahay mathalan uniswap oo kale uni oo kale banki swapkaba cake oo kale sushi oo kale macnaha marna waxaa la siinaa lp token oo tokenka suuqa laga leeyahay ah oo marna lagu magacaabo lp token marna lagu magacaabo governance token iyo fee labada qaybood bay helayaan marka maxay noqonaysaa arrintaas diin ahaan waa culammadu waxay dhaheen waa xaaraan waana ribo haddii suuqa adigu intaad samaysay oo criptooyinka meesha laga gadanayo adigu aad noqotay qofka criptada laga gadanayay oo buulska adigu aad samaysay fiigu dhib ma laha bay dhaheen culammadu inaad fii ka qaata maadaama meesha suuq tahay laakiin dhibku wuxuu ka yimid in cripto kale haddana lagu siiyo sababta ay dadkan liquidity minerska ay meesha u tagaanba waaba intaas waa inay ribo ku qaataan meesha la-anna lacagtooda meesha geynayaan iyadoo cripto ah criptadaasaa laga gadgadanayaa criptadaasa u shaqaynaysa kaasi fee iyo ribo helayaan oo isla socda saa daraaddeed culamadu waxay dhahaan liquidity provider qofku inuu noqdo waa ka xaaraan suuqyadaas liquidity uma samayn karo qofku criptooda ma geyn karo haddaan marka laku celiyo suuqyadan dekiska waxay ku shaqeeyaan wax lagu magacaabo liquidity pools liquidity poolsna waa meel criptooyin lasoo geeyey liquidity poolka marka qof kastaa noqon kara markuu qofku noqonayo criptadii uu meesha geynayaa kasoo qaad $1 milyan baa haysataa waxaad dhahaysaa halkaa milyan $500,000 BNB baan ka dhigin $500,000 Ethereum baan ka dhigin pool baan samayn kadibna waxaan geynayaa Uniswap amase waxaan ka wadaa ama wax tusaalan ka wadaa aniga bankiga swap inay qaadan saas u qaadan waa laga yaabaa laakiin criptadu laakiin waa inaad beerkii meesha geysaa kadibna dadka banaanka ka imaanaya swapka sameynaya poolkaaga ka gadanayaan buulashu waa badin marka Ethereum iyo mid kale BNB iyo mid kale BSUD iyo mid kale yani cripto kasta criptooyin fara badan oo buulisa jira buulis lagu sameeyo oo macnaha meel isugu geeyo kadibna suuqyadan la dhigo marka waa saas dadka liquidity minerska ah ama liquidity providerska ahi pool bay sameynayaan criptadii lagu adeeganayay oo criptadii suuqa ka shaqeynaysay bay meesha keenayaan criptadii la gadanayay ayay meesha dhigayaan intaas haddaan kusoo yaro koobo qaybtaas kore qaybtan hoose waxaan ku qoray criptooyinkooda dhammaan waa xaaraan suuqyadan criptooyinka lagu kala gadanayo ama decentralized ha ahaadaan ama centralized ha ahaadaan criptooyinkooda ma gadan karaysid siday culamada noo sheegeen wayna xaaraantimeeyeen criptooyinkooda maxaa kamid ah Binance oo kale coinkooda BNB
kucoinkooda kale oo KCS la yiraahdo iyo kuwa kaloo tirada badan suuqyada centralized kuwana waxaa ka mid ah Uni oo Uniswap leedahay, Cake way leedahay, Pancake, Sushi uu leeyahay Sushi Swap, Smart KCS uu leeyahay, KuCoin suuqyada centralized BNB, HT, Huobi token. Kiribtooyinkaas culimo waxay dhaheen waa xaaraan, sababtana waxay u cuskadeen maadaama ay suuqyadanu koonakaas ayagu samaysteen, suuqyadiina ay yihiin suuqyo xaaraan lagu kala gadayo iyo xalaal isku dhex jira. Kiribtooyinkooduna ay yihiin kiribtooyinkii suuqyada ka dhex shaqaynayay oo fududeynaya hawsha suuqyada ka dhex soconaysa, oo use case kaleba aan lahayn iyo wax kaloo loo isticmaalayo. Koonanka kani suuqyada bay ka dhex shaqaynayaan, ayaga unbay hawshooda fududeynayaan. Suuqyadana waa suuqyo xaaraan lagu kala gato iyo xalaalba. saa daraadeed waxay dhaheen ma banaana koonankooda suuqyada in la gato. Boontiga uga socda marka fiidogan wuxuu ahaa inaan sheego koonanka suuqyadu leeyihiin in laga fogaado iyo suuqyadaas in looga ekaado sportka qaybta la yiraahdo dhinaca centralized qaybta decentralized kana looga ekaado swap kaliya in wax lagu bedesho bis laga tago ee aan la gelin qaybahan kale. Kuwa hadday ahaan lahayn aan la gelin staking kooda, lending kooda aan la gelin, farm kooda aan la gelin, lottery kooda aan la gelin, liquidity provider aan laga noqon, qaybahan aan sidoo kale ayagana derivatives kooda la gelin, staking la gelin, gambalka iyo khamarka la gelin, yield farming qaybaha la isdeyminaya kiribtooyinka oo ribada lagu kala qaadanay aan la gelin, marginka waa inaan la gelin, leverage kana waa inaan la gelin. Marka suuqyaashaas waa saas. insha Allah marka waa inaan aad u taxadarnaa. Suuqyadan saan usoo sheegnay waxyaalo badan xaaraana ka buuxa, qof walba waa inuu taxadaro. maadaama hadda aan wax yar ka fahanay liquidity providerska, wixii hadda ka dambeeya waxaan geli karnaa marka yield farmingka waxa la yiraahdo, oo ayaguna aan wax kale maaha kaliya ah dadka liquidity providerska ayaa yield farming noqda. Marka waan arki doonaa say u noqdaan insha Allah. halkaa hayno joogto mawduuceennii aanu u falanqaynaynaa ama inoo ahay sidee lagu kala gartaa kiribtooyinka xalaashooda iyo xaaraantooda, oo saaxiibkeen cabdifataax caano nala socodsiinayay. waxaana filayaa in wax badan aanu ka barannay. bari kama qodna faanolo weli barnaamijyo kale ayaa soo socda oo si aada arrimahaasi lagu falanqayn doono. halkan ayaadna kala socon karaysaa. haddaan ugu cusub tahay like dheh, subscribe saar, asxaabtada la wadaag, asxaabta qaybta maqalka Spotify, Apple Podcast iyo Google Podcastina rayd wanaagsan noo siiya shabakadeena Crypto Somali TV si dad fara badan oo Soomaaliya ayuu gaarso. inta barnaamijkan mid la mid ah aan ku kulmi doonane crypto hawdkeeduna ma wanaagsana in lagu fogaado. sidaas nabadgelyada nolol kula tiriyo amaan Allah.